ninkan wuxuu haystaa shilin dahab balse ma isticmaalayo sababtoo ah dahabkaasi waxaa siiyey macalinkiisa indhasarcaadka mar walba wuxuu isku dayay baasha inuu ka ciyaar balse maalin kamid waxaa qaadanaysa gabadhan yar kadibna wuu imaanaya welibana isagoo qaab indhasarcaadka aan kaaga qaadaya markay gabadha gacmaha isku qabatan hal mar way ka wada qaranaya gabadhi way yaabaysa indhahan taagaysa mar kale haddana dhigteed ayuu kasoo bixinaya welibana ayadoo yaabo markaasay bilaabaysa inay ku dhahdo laakiin adiga qaabkeed ku samaysay markaasuu soo xasuusanaya yaraantiisa baashan qofkii siiyey iyo rafaadka lagu soo siiyey qaabka fudud oo kusoo helay dib ayuu wuxuu bilaabaya gabadh inuu iska siiyo sababtoo riyadiisa ay eetil la siiyo isagana gabadha inuu riyadeeda u sii rumeynaya isagoona ku dhahaya baashaas adiga iska qaado muddo kadib ninkii duq ayuu noqday halkan ayuuna fadhiyaa waxaa loo keenaya kaarkan welibin isagoo lagu dhahaya caawa hawadeeda baa inaad ii imaada marka la gaaro habeenka indhasarcaadka meesha markuu yimaadana waraaqdiisa ayaa la siinaya halkan ayaa la fadhiisinaya markaas bileer ayaa lagu qabanaya ninkii wuuna yaabaya kadibna lasoo istaajinaya wuu soo kacaya halkaas ayuuna soo fuulaya waxay is arkayaan isagii gabadhaha welibanaha isagoo yaaba ninkan wuxuu isleeyahay qoftan maanta rabta inay kugu sameeydo aqaday ka qaadaysa isla markaas wuxuu dareemay coinkii inuu yahay isla coinkii ku sida u sii fiiriyaan gabadhu waa isla gabadhii ninkiin aad iyo ugu farxay inuu arko ayada markaas dadka meel joogo idil waxa ku dhaysaa kani waa aniga macalinkayga